So it's a lot of confusing things. Anyways, ku socda guys. Because aniga waxa waaye you're missing the picture wallahi. Go ahead Mohammed. Asalaamu calaykum. إيمان أنا waad قاعد salaamay. wax yar aad baa horta u mahadsan tahay. barnaamij fiican baa noo soo diyaarisay. waa kaga hadashay lacagaha iyo dhibaatada ay leeyihiin. ninkii Faarax ahaa aad ayaad u dabagashay warkiisa. marka waa dareemi karaa culayska ay leedahay in Soomaali lagu turjumo waxa Ingiriis ku qornaa aad dadku u sharxaysid waa arrin aad u adag. marka juhdigaas iyo dadaalkaas jazakallah khayr ilaahay ku siiyo macnaha dadkii fahma oo arrinta dhibaatada ay keentay lacagaha iyo dawladuhu ay inay noqdaan. waxaan kaloo rabaa inaan in yar ku daro oo rabaa inaan su'aal yar ku weydiiyo dhibaatada ma la oran karaa dawladda ayaa keentayba sidaadaba dawladaha ayaaba dhibaatada ma la dhihi karaa boqolkiiba boqol laakiin aniga waxa waaye waxaad aaminsanahay Federal Reserve aba aaminsanahay I'm blaming the money laakiin dawladda you gotta specify what you mean because aniga waxaan aaminsanahay systemka dawladaha la haysto ayaa waxay noqdeen saad u sheegtay adigu oo sharxaadaada ka mid ahayd dadkii ayaa waxay dhimaan rabaan inay caafimaad free helaan waxbarasho free helaan wadooyin loo dhiso canshuur fiican inay bixiyaan ma rabaan marka ninkii hogaamiyaha oo madaxa laga dhigtay wuxuu ku dhex jiraa dhib aad u badan oo marka hore been buu sheegaya dadku sheegaya uu leeyahay waxaan qabanaya hadhow marka kursiga fariistana waxa reality u soo baxaysa oo inuu soo wadooyin badan dhisi karin dadka canshuurta ku siyaadin karin xaggan waxa ka jirta arrintii deficit-ka ka shaqeynaysa baa imaanaysa marka in dawladda deficit ku dhacdo lacagta soo galisay iyo lacagta ka baxaysay ay kala bataan marka ani waxaan aaminsanahay inay tahay systemka dawladeed ee la haysto inuu dhibaatadu yahay oo in horta taas dib loo eego oo systemka dawladeed wax laga bedelo oo laga dhigo dawladaha dee shaqo yar qabanaysa service yar oo kooban oo maybe military oo kaleeto kaliya in lagu koobo oo caafimaad iyo wadooyin iyo wax kale loo dirsan markaas waxa imaanaysa arrintii deficit-ka hadda ka shaqeynaysa ayaa yaraanaysa waxay noqonaysaa one task in loo dhiibo la dhaho one taskaas kaliya qabta marka midaas horta waa midaas waxaan kaloo rabaynaa kaga hadlo arrintan barnaamijkii maalinta kaga hadashay Noster oo aad adiga xaaji tooshin oo ku jira oo ka hadli doonaa filayaa ina wax ka dhaho Noster horta waxaan u maleynayaa dad baa si qaldan u fahmay waxay u maleeyeen lacag free meesha laga helo lacag free wax la yaab ma jiraan lagamana helo lacag free kaliya waxa weeye dadkii ayaa waxay is siinayaan waxay u arkaan inay u qalantid postiga soo dhigtay iyo note-ka soo dhigtay marka wax lacag la yiraahdo free ma jiraan cid lacag free ku siinaysa macnaha aan ma jiraan waxay ku xiran tahay qofkan individualka oo kale adigoo kaleeto waxa soo dhigtay inuu ka helo markaas wuxuu ku garto duu doonto $100 ha noqoto hadii doontana 1 cent wax u dhiganta ha noqoto inuu ku siiyo laakiin Noster kambaniyasha Noster iyo waxa ku dhisan meesha lacag ku siinayaan gooni ku siinayaan free ma jirto waxa kale oo iyaduna muhiim ah in numberka passwordka NSAC la ilaashado oo meel secure lagu qorto xaaji tooshin oo deynaya inuu si deeply arrimaha kale u sharxo arrinta ku saabsan client kala duwan iyo qaabka loo isticmaalo qofkii waxa ku daray even way ka badan tahay 50% battery I don't think any 50% tahay node operator-ka waxa laga rabaa 90 waa high number ayaa laga rabaa percentage inay isku raacaan in code-ka wax laga bedelo 21 million waa meesha ugu dambeysay Bitcoin laga taaban karo haddii 21 billion ka la bedelo Bitcoin damba ma sii ahaanayso waa u dhamaatay macnaha waa laga tagay sheekadaas waxay noqon doontaa coin kaleeto marka ujeedka ugu muhiimsan ama waxa Bitcoin value u yeelay waxa kamid ah ama dhumucda ugu weyn waxa weeye waa 21 million kaas haddii la taabto oo la farfareeyo oo wax laga bedelo waxay noqonaysaa Bitcoin Cash oo kaleeto waxa kale oo aan kula talinaya in akhristaan waxa la dhahaa block size war book laga qoray 2017 markii ay damceen group isu maleynay inay noqdaan yihiin macnaha dadka horboodaya Bitcoin ay yihiin dadka macnaha la dhageysto iyo coin minerska dadka minerska ayaa isu tagay waxay damceen inay Bitcoin block size-ka maahan number of Bitcoin lagama hadlayo supply waa block size waxa la dhaho inay kordhiyaan oo waa wax adigu technically aan saas u dib weynay bay damceen inay bedelaan saas tahayna 2017 Bitcoin dad badan ma isticmaaleen sida hadda dadka dhan wada yaqaan looma wada aqoon seller iyo dad kale iyo dawladda ma haysan badanin saas ay tahay way awoodi waayeen inay block size-ka xataa kaliya inay gudbiyaan ay bedelaan sida hadda hore loo sheegay waxa dhacday fog baa dhacay marka hadii la isku dayo in 20 milyan la bedelo waxa dhacaysa coin kale oo cusub in meesha ka soo baxo Bitcoin sidii hore ay ku sii socoto
marka taas oo meesha ugu dambeysay intaas yar ayaan rabaa liibaan baa si fiican ugu jawaabay ما والله waa ii sii xaqiijisay ما شاء الله